السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشا شرفت لي ولكن أحمد باشي oo idin la isku soo noqdo wanaagsan oo xiiso leh halka aad daawanaysaan waa janaalka hore socod TV qodobada caawa aad dhageysan doontaan waxa kamid ah garoonka ciyaaraha Muqdisho Stadium oo dib loo furay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen Faysal Cali Waraabe oo sheegay in aadan uga timid guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland waa suuragal inay dib u dhacdo waqtiga doorashada guddiga doorashada Soomaaliya soo bandhigay qodobada dibadda ee caawa aad dhageysan doontaan waxa kamid ah muslimiinta Hindiya waa ay cabsanayaan mana jirto cid u damqanaysa sidaas waxa tiri haweeney u dhalatay dalka India dalka Itoobiya ka socdaan dibadbaxyo aad u waaweyn oo waliba rabshado wata sababta aan ugu maleeyay in cunugayga uu lahaa indhashaydan sidaas waxa tiri haweeney tartanka koobka qaramada Afrika oo dib loo dhigay qodobadaas iyo wixii nagu soo kordho ayaad ku dhageysan doontaa barnaamijkeena caawa barnaamijka waxa isku soo dabariday saaxiibkay Xuseen waxaana soo jeedinaya anigoo ah Axmed Baashi ugu horeyn waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe ii saarto haddii aad ku cusub tahay balse haddii aad ka mid tahay asxaabta hore inay la joogto waxaan kaa codsanayaa inaad videogan like saarto aan ku horeeye garoonka ciyaaraha Muqdisho Stadium ayaa maanta dib loo furay maanta oo ay taariikhdu ahayd 30 June sanadka 2020 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xariga ka jaray garoonka ciyaaraha ee magaalada Muqdisho haddaba maxay ka dhigan tahay furista garoonkan iyadoo maanta ay ku beegneed maalin taariikhi ah maadaama dib loo furay astaan kamid ah astaamihii aanu lahayn oo ah garoonka ciyaaraha Muqdisho oo bari samaadkii loo aqooni jiray tuulada ciyaaraha dalka haddaba dhismaha garoonkan ayaa wuxuu qaatay muddo aad u dheer waxaana maanta ay ugu dambeysay xariga ka jaray madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Faysal Cali Waraabe oo BBC-da ugu waramay eedayn uga timid guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland golaha wakiilada Soomaaliland ayaa xir ilaalinta ugu baaqay in gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe lagu soo oogo eedo la xiriira aflagaadeyn iyo kicin dadweyne waxay si gaar ah uga eedeeyeen inuu ku xadgudbay karaamada iyo maamuuska dastuuriga ah ee gudoomiyaha golaha wakiilada Baashi Maxamed Faarax ayagoo guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada sidoo kale sheegeen in kalsoonidii ay kala noqdeen Faysal Cali Waraabe goor dhaweed ayaan la xiriirnay Faysal waxaana uu ka weydiinay balse sida uu arko waa wax uu kaga jawaabayo eedeyntaas fadaan caan ah u dhashay dalka Itoobiya lagu magacaabo Halaaku Hundeysa ayaa lagu toogtay caasimadda dalkaas Itoobiya ee Addis Ababa waxa isla markiiba la geeyay isbitaalka balse wuxuu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ka tacsiyay geerida Akaalu isaga oo ku tilmaamay inuu ahaa heesaa cajiib ah heesaha uu fanaankan qaadi jiray ayaa badana waxa uga hadli jiray xorriyadda iyo xuquuqda qowmiyadda Oromada waxaa jira walaac laga qabo in ay dilkiisii dalkaasi ka abuurto xasilooni daro booliska ayaa sheegay in ay xireen dad ay ku tuhunsan yihiin dilka fanaankaasi dalka Itoobiyana waxa ka socda mudaharaadyo rabsho wata oo ka dhashay dilkii fanaankaas loo geystay oo xalay lagu dilay magaalada Addis Ababa dawladda ayaa jartay adeegii internetka waxayna hawada ka saartay baraha ay bulshadu ku wada xiriirto booliska federaalka iyo laamaha caafimaadka ee dalka Itoobiya waxa ay sheegay inay rabshado dhexmaray booliska iyo mudaharaadayaal in lagu dilay ugu yaraan 3 qof 4 kalena lagu dhaawacay booliska waxay intaa ku dareen inay qabqabteen dad looga shakiyay inay dilka fanaankaasi ku lug leeyihiin naxashka fanaanka la dilay oo yaalay isbitaalka Paulos ayaa loo qaaday magaalada Ambo oo uu fanaankaasi ka soo jeeday waxa magaalada Addis Ababa ku soo celiyay shacab careysan iyaga oo sheegay in fanaanka lagu aasay halkii lagu dilay meelaha qaarna waxa iska hor imaad uu ku dhaxmaray booliska iyo shacabka mudaharaadayaasha booliska waxa adeegsadeen rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmeysiisa aan ku laabtay magaalada Muqdisho waxa maanta laga dahfuray oo si rasmi ah xariga looga jaray garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium oo muddo dhowr iyo 10 sano ah
wax aan kubadda aan lagu ciyaarin. Garoonka ayaa iminka dayactir lagu sameeyey kadib markii uu burbur xoog leh soo gaaray tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dhacday dowladdii kacaanka ee uu madaxa ka ahaa Jaale Maxamed Siyaad Barre. haddaba marxaladii uu garoonka soo maray iyo sidii uu ahaan jiray waxaan ku eegi doonaa warbixinadeena iyo barnaamijyadeena soo socda, kuwaasi oo aad dib ka daawan doontaan hadduu eebbe idmo insha allah. sidoo kale dowladda Iiraan ayaa soo saartay warqad ay ku weydiisanayso booliska caalamiga ah ee Interpol inay xiraan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo 10 qof oo kale oo ay aaminsan yihiin inay ka dambeeyeen dilkii Qaasim Sulaymaani. booliska caalamiga ee Interpol oo saldhigoodu yahay magaalada Lyon ee dalka Faransiiska ayaa BBC-da u sheegay in ay san tixgelin doonin codsiga dowladda Iiraan. Jenaraal Qaasim Sulaymaani oo ahaa madaxa cutub ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan oo lagu magacaabo Quds ayaa horaantii sanadkan lagu dilay gantaallo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku rideen garoonka diyaaradaha magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq. sharciga u yaala ayaa hay-adaha ka mamnuucaya in ay sameeyaan tallaabooyin ku aadan siyaasad militari, arrimaha diimaha la xiriira iyo midabta koorka. qodobkaas ayay ku xuseen warkooda ay soo saareen. dadka falanqeeya arrimahaas ayaa sheegay inay warqadda ay dowladda Iiraan u dirtay Interpol ay muujinayso xiriirka xumaaday ee ka dhexeeya Trump. dacwad oogaha guud ee Tehraan Ali Al-Qassimir ayaa isniintii sheegay in Trump iyo 30 qof oo kale uu ku lug lahaa dilkii Qaasim Sulaymaani ay wajihi doonaan dacwado la xiriira dil iyo argagixiso, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wakaaladda wararka ee ISNA. dilkii Jenaraal Qaasim Sulaymaani ayaa waxaa sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. Soomaalida Ingiriiska ku dhaqan oo ka wadanay sida xayiraadda koronaha u saameysay ganacsigooda. Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in Sabtida wixii ka dambeeya la sii dibcin doono xayiraadaha ka hortagga coronavirus, iyadoo goobo badan oo ganacsi oo ku yaala gobolka England dib loo furi doono. wariyaha BBC-da ee Mawlid Xaaji ayaa booqday xarumo ganacsi oo Soomaalidu ku leeyihiin degmada Brent ee magaalada London, aaggaas oo xayiraaduhu markii hore si aad ah u taabteen. warbixintan aan hadda daawanay ayuuna nooga diyaariyey. haddaba intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkayga maanta. barnaamijka waxaa ka qayb qaatay asxaabta kale ah Xuseen iyo weliba Caga Dahab, waxaana soo jeedinaya anigoo ah Axmed Baashi. intaan ku kulmi doono barnaamij caynkaana waa bahda Horusocod TV oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.